labadii ee xadiiska nabigu noogu sheegay fi sunan nin baa nin dhul ka iibiyay dhulkii markuu gatay waa dhul beereed buu ahaa uu falay markaa khasna dahab markaa uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay oo la ordo ninkii lahaaba uu keenuu ka yidhi war dhulkaad iga iibisay dahabka inta leeg baa ka soo baxee malaha waad ilowsaneed iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi may anu kuma ogeyn adaa ilaahay kaa siiyey adaa iskale iska qaada buu ka yidhi war waxaan adiga ale iga qaado innaga zamankeenna waa maxay war waxaan aniga ale isii weeyaan teen waxa ku dagaalameen dhulkan aniga ale gurigan aniga lahaa meheraddan aniga lahaa waxaan aniga lahaa baa isku haysannaa iyaku waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adiga ale iga hoo iyo kaa qaadan maayo may ma dhici karto may adaa iska leh adaa ilaahay ku siiye iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahay adigaa iska leh iga qaado waxaan malihi anigu lacagta intan leegna anigu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tageen maxay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kale leh ha iga qaato kana wuxuu leeyahay war maliye isagaa ilaahay siiyey ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa qudaada zamankan laga yaabay inay odhan lahaayeen xoolaha dawladda ale iska keena qaar baa iska fiican way jiraan laakiin kuwa de waxa iska jira dawladda u shaqeeya moogta xoolaha dawladda iska keena halka ka baxay ninkuna ma odhan wuxuu yidhi adu maxaa leedahay ubad wiil adiguna gabadh labadaa isku guuriya labadaana xoolaha siiya buu yidhi islaaxu waa cajiib